جنرال xogaha media waa jannal taagan taariikhda iyo inuu kaaga sheekeeyo wax walba oo maskaxda kugu dhisi karo barashada taariikhda waa nolol dhammaystiran fadlan subscribe saar oo ku taxnow jannalka xogaha media una sii sheegare asxaabtaada waddanka Cameroon oo loo yaqaan jamhuuriyadda dadka ee Cameroon waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala bartamaha qaaradda Afrika waxaana xuduud u leeyahay wadamada Nigeria, Chad, Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe, Equatorial Guinea, Gabon, Jamhuuriyadda Congo. dalkan aan hadda ka sheekaynayno ee Cameroon waxa uu xorriyadiisa ka qaatay Faransiiska oo gumaysan jiray 1 bishii January sanadkii 1960 waxaana madaxweynihii ugu horeeyay ee dalku yeeshay la oran jiray Ahmadou Ahidjo. caasimada waddankan waxaa la yiraahdaa Yaoundé. tirada dadka waddankan ku dhashay waxaa lagu qiyaasaa 22 milyan oo qof. calanka waddankan waxa uu ka kooban yahay midabada cagaarka, casaanka iyo hurdiga oo siman, dhexdana ay kaga taal xidig shan gees leh oo hurdi ama jaallo ah. lacagta waddanka laga isticmaalo waxaa la yiraahdaa franc. gaadiidkuna waxay isku dhaafaan dhanka midig. luuqadaha rasmiga ee dalkan looga hadlo waa English iyo Faransiiska, hase ahaatee ku dhawaad 20 luuqadood oo kale ayaa waddankaasi looga hadlaa. dadka taariikhda yaqaan waxay sheegaan in dalkaani qarniga 15aad loo yaqaanay dhulkii webiga Shirim. xagga dhaqaalaha, dalkan waxa uu ka mid yahay wadamada Afrika ee saxaraha ka hooseeya ee dhaqaalahoodu ka bacayo, waxaana xiriir ganacsi la leeyahay wadamada ay ka mid yihiin Faransiiska, Talyaaniga, Spain, Kooriyada Koonfureed, Ingiriiska iyo wadamo kale. waxaana dadka wax saadaaliya ay xusaan in dhaqaalaha Cameroon uu xawli u kobci doono marka la gaaro sanadka 2035. dhanka diimaha, dadka waddanka ugu badan waa Masiixiyiin, muslimiintuna bulshada waddankaasi waxay ka yihiin 24%. islaamka waxaa la aaminsan yahay in dalkaasi uu gaaray bilowgii qarniga 19aad. cunooyinka ay ka mid yihiin galleyda, masagada, digirta, bariiska iyo noocyo kale oo qudaarta ayaa waddankaasi laga isticmaalaa. ugu dambeyn, cayaaraha haddii aan u eegnana, kubadda cagta oo ka mid ah cayaaraha loogu jecel yahay waddankan. xulka kubadda cagta dalkaasi 4 jeer ayuu ku guuleystay koobka qaramada Afrika, dhowr jeerna meelo dhexe ayuu ka gaaray koobka adduunka ee hay'adda FIFA maamusho.